magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa si xoogan looga dareemayaa xiisad siyaasadeed ka taagan filla Soomaaliya taasoo u dhaxayso madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble. Xiisadda ayaa ka sii dartay markii uu xalay saqdi dhexe Farmaajo uu shaaciyay inuu shaqo joojin ku sameeyay Roble oo ku eedeeyay musuqmaasuq iyo ku tagrifal awoodeed. Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee muddaxilhayntu ka dhamaatay oo ka hadlay talaabada uu qaaday Farmaajo ayaa wuxuu ku eedeeyay in xalay iyo saakay uu xiray dhammaan jidadka soo gala ismaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in irida SYL ee laga galo filla Soomaaliya iyo xafiiska Ra'iisul Wasaare lagu gooyay beebayaal sida uu hadalka u dhigay. Lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana xaaladdu ay u muuqataa mid haatan ka sii daraysa iyadoo lagu jiro xilli adag iyo marxalad doorasho. Inaad nagu soo biirto si aad noola sii joogto waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar TV. Daawade mar waliba waxaad naga heli doontaa warar sugan, short films